ciid wanaagsan kula caam wa antum biqeer waxay maanta ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adha waxaana si weyn loogu dabaaldegay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya halkan idin kala soo hadlayo waa masaajidka Isbahaysiga Islaamka waxa ku tukaday boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya mas'uuliyiintii halkan ka socotay dawladda waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo salaada Ciidul Adha ku soo dukaday masaajidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho salaada kadib gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo khudbad u jeediyay boqolaalkii shacabka ee salaada ku tukaday masaajidka Isbahaysiga Islaamka ayaa waxa uu hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan isagoo ugu baaqay inay u gaaraan dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo dhibaatooyin kala duwan xilligan ay haystaan dadkeenu baydhabo ka soo bilow ilaa magaalada Xamar dadku sida u daadanayo oo ku dhimanayo oo baahi jirto ayaa ciidamadaas yimaadeen raashinkii jirayna isagoo una gaaraynin dadkaas ayay waxay gaarsiiyeen raashinkaas ayay dadkii gaarsiiyeen waxaan isleeyahay dad fara badan oo Soomaali ah oo maanta nool waxaan filayaa baahi la ajligeed inay u dhammaan lahaayeen intaas waxaan ugu haynaa abaal laakiin waxaan isleeyahay wixii waqtigaa ka bilaabma caalamku waa nala jooga waa idin taageeraynaa bay leeyihiin laakiin ma arko anigu taageero waxtara oo aynu ka helayno oo maxay noogu wacan innagaa reer hebel u kala qaybsan oo aan jirin kolkaa cid waliba way ka faa'iidaysanaysaa waxaan isleeyahay dalkani waa dal qani ah ma aha dadkii lagu baahan lahaa waa dalkii dadyow fara badan oo adduunkii ka faa'iidaysan lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen laakiin halkaa waxaa ka saaray jiritaankeennii ayaa noqday mid kala firiidhsan oon israacsanay maanta haddii aan anigu masaajidkan nimid oo la isiiyey ereyga fursadda inaan ka hadlo waxaan leeyahay Soomaali inay mid noqoto oy meel uga soo wada jeedsato cadow kasta oo yimaada way iska celin kartaa dib kastana way ka baxaysaa leesh dhaqaalaheedu waa hodan dalkani waxaan soo qaadanayaa hees fannaan Soomaaliyeed oo dhallinyarihii uu sameeyey oo uu dalkan ku sifaynayo wuxuu yidhi in dalkeennu hodan yahay weliba dihin yahay dabayl udugku siisa oo diiran leeyahay dunidu way ogsootay ma jirto caalamka hawada uu dalkani leeyahay meel lihi ma jirto wuxuu yidhi inaynu duunyo leenahay geelu door horaad yahay lodu dinaahinayso adiguna ka daran yahay duurjoogtu dheer tahay dunidu way ogsoontahay wuxuu yidhi inaynu badurugsan leenahay malaynu door horaad yahay dubo oo ka dherag yahay dunidu way ogsoon tahay intaa kolka la ogsoon yahay maxaa kolka meesha ka soo baxaya waxaa deegaanka Kenya dabka looga shidaya faragelinta dibadda aan laynooga daynin inay tahay aadam miyaynaan dareemayn intaas fanaanka Soomaaliyeed uu yidhi khayraadka dalka Soomaaliyeed waa ka badan yahay in dadka ku nool uu ku baahdo waxa weeye waxay tahay ceeb bay nagu tahay ceebteennuna halkay fadhidaa waa reer hebel anigu waxaan aaminsanahay inaynaan reer hebel dawla ku noqonayn oon marna lagu dhisayn sababtuna waa maxay
reer hebel waa dhaqan ee siyaasad ma aha siyaasadii waxay u baahan tahay afkaar lagu dhiso laakiin reer hebel waa dhaqan waa dhaqan isku xidhaya oo ah aan qofna qof u oggolayn siyaasad fiiriya arrintaasi waa arrin taagan oo innaga marka laga soo bilaabo muddo dheer ina haysatay weyn waxaan leeyahay haddii maanta ereygaa laysiiyey soomaali waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaan ugu baaqayaa cadaalad waxaan ugu baaqayaa inay isku tiirsanaato sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaano xubno ka socday maamulka Hirshabeelle abwaano iyo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa hambalyo taas la mid ah u diray shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo gobolada dalka maali dhamaan hambalyo maylana arday geeg Soomaali meel kasta iyo roogda arday muslimiinta caam dhamaantiyo marka salaamana arday markii iyo sidaan arday salaatul ciidul allaha oo ciidi weynayti insha Allah ta'ala mayna hambaliyayaan meel kasta roogaan oo ka hadlo walaha shacabka xilbaan ay mareyn daayo anoo may ka hadlay meel kasta iyo roogaan Soomaalida maylana hambalyo may kale arday ka baaqana geeka waa maalin yawmal farah marka yawmal farah marka waan sheegaynaa inay faraxsan yihiin Soomaali meel kasta maanta ay taagan yihiin inay faraxsan yihiin oo ciidi weynaysay ay la rajay ciidul allaha ay maanta ay tahay maalin farxadeed maalin arday ciid maalin farxadeed maalin hambaliyin la hambaliyayno marka waxaan rabnaa Soomaalida cid kasto maanta wax haysto oo gacantooda wax ku jiraan inay dadka ay tabaryar ay wax gaarsiiyaan ee caruurtooda ay la iidaan ay farxad ay ku iidaan taasaan arday waxaan leenahay ugu hambalyeynaa taasaan ay arday u sheegaynaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay ciidada anagoo caafimaad qabno ee faraxsanahay oo wadankan in nabad yahay Ilaahay hana gaarsiyo insha Allah ta'ala ay arday u mahadsantihiin waan arday ka faraxsana insha Allah ta'ala ciidu iidiyeen inuu faraxsan inuu caafimaad qabno Ilaahay hana gaarsiyo sallallahu alayhi wa sallam ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr waxaan salaan u dirayaa dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ugu horeeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo golaha baarlamaanka waxaan salaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba ilaahayna waxaan uga baryayaa nabad iyo caano bishan iyo bisheeda kale Ilaahay inuu nagu gaarsiiyo waxaan salaan u dirayaa cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysa intaa kadib ilaahay baan baryayaa ya aamiin idha casiiso wallahayow adigu caadil baa tahay cidna dulmi aad mayside annagaa dambaabnay cabdigaagii baan ahay addoonkuu cawdaan ahay calaacalaha maran baan cirka sare u taagaye rabbow yoomkan ciideed codsigayga ii fuli rabbow yoomkan ciideed codsigayga ii fuli soomaalida xoolaadiyo cudurkiyo abaartiyo cusrigaanna haysiyo ka dulqaad culayskoo nabad lagu caweeyiyo iimaan ku soo celi caafimaad sareecana cirka ooga soo tuur allahayow casiisow caloosheeda isu maydh ciiddeedu waa hodan carradeeda makansii midnimadu waa cudud cadowgaa ka naxayee caynkay ahaan jirtay allow noogu soo celi calankaa shangeestaa cirka lagu mataalana waa calaamad gaaroo caalamku nagu yaqaanee ka ilaasha ceebta allow cadowga naga qabo allahayow casiisow caalimulqayuubow cilmi badanihiiow caynku doona yeelow annana waan cirrowlaye cibaadadayada taam yeel cimriganana barakee naga xoree cadaabkii soomaalina cawiya nabad allow noogu soo celi بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan waxaan halkaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed ee dunida dacalada ku nool iyo kuwa dalka ku nool dhamaantood waxaan leeyahay hambalyo
عيدا عيد كلا بشبش براق جارة كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أنت أكيد بحنا رأي إن هنبلي أدرى ومدة هير شباب لما الكسو جوان جدها يدبد بحنا لا هي هنبلي عيدا كلا دين كان الله دين جارسية sidoo kale waxaan u baaqayaa inay isgargaaraan meel kasta oo joogaan oo gacmaha isqabsadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarka iyo nabadgelyada ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay maanta farxadku ciideeda kale iyo ciido kale waxaan idin diraa in saana kala u ciidaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa inay dawladnimada garab istaagaan inay is caawiyaan inay is jeclaadaan inay is walaashadaan waa u baaqayaa waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Sheekh Shugri waxaan ka socdaa xaafadda Howlwadaag ee gaar ahaan degmada gobolka Banaadir waxaan halkan farxad ugu dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair maanta waxaan farxad igooniya inaan la ciido madaxda dalka iyo masaajidka weynaa isbeesiga saa u jeedin waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtiin ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair dhammaan meeshan waxaan ka salaamayaa dhammaan intay taqaano inta kale iyo ahliyadeedii qaraabadeeda waxaan idin leeyahay ciid mubaarak aniga waa magacayga Mulki Xuseen Yuusuf ma sha Allah aad iyo aad u faraxsanahay aniga oo maanta ka soo ciidaystay Madiina oo maanta ku soo ciidaystay masaajidka isbaasiga inaan ku soo dugto ma sha Allah aad iyo aad dareenkay u weyn yahay waxaan halkan kale ka salaamayaa hooyaday aad ka u jeclahay hooyo Sahro Idris Ismaan hooyo waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda cimri caafimaad Allah nagu gaarsiiyo waxaan halkan kale ka salaamayaa walaalahayga oo qurbaha ku maqan Xaliimo Istanbul Faadumo waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair dhammaan ummadda muslimiinta waxaan halkan kala wadaagayaa ciid mubaarak waxaana leeyahay farxad ku ciida iyo reen waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in aan halkan ku soo dukado oo salaadeeda aan maanta ku guto masaajidka isbaasiga waxaan kaleeto halkan si khaas ugu salaamayaa saaxiibkay Xasan iyo waliba waalidiinteeda aan jeclahay hooyaday Maryama iyo waliba aabahayga waxaana leeyahay farxad iyo reen ku ciida sanadkiisa dambo insha Allah waxaan idin rajayaa farxad guul ciid wanaagsan hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan maanta waxaa farxad ii ah inaan ku soo dukado masjidka isbahaysiga aan la dukado madaxda Soomaaliyeed kuwooda kala duwan waxaa kaloo farxad ii ah dadkan aad u tiro badan ay u jeedaan in aan la dukado waxaa kaloo farxad ii ah inaan Som News aan u marsiiyo dadka hambaliyada ciida maadaama uu yahay telefishin aad iyo aad loo daawado السلام عليكم عيد وناكسن سومالي محمد مال والبا جوجتان waxaan idin leeyahay qaasatan reer Muqdisho ciid wanaagsan ciid al-adha waxaan idin rajeynayaa ciideeda kale inaa caafimaad iyo bashbashi barwaaqo gaartaan salaam bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan imaan masaajidka islaamka farxad weyn ii ah inaan dhammaan kullu caam wa antum bikhair muslimiinta dal iyo dibadda ay u joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda kale bashbash iyo barwaaqo ciid wanaagsan fiican alxamdulillah ilaahay noo nimcay maanta waa maalintii ciidu adlaxaadi waaye waxaad u malaysaa maanta magaalada inay aad u damaashaadayso waxaan ka dareemayaa maxay ahayd dadkii oo ku noolaa caasimadda Muqdisho farxad iyo hambalyo ay ishambalyeynayaan beerta nabadda dadka sida ay soo gaarayaan iyo sida ay mas'uul ku tahay iyo dabaaldega ka soconaya maxaan u jeedin wallahi beerta nabadda waa sida hadda aan isku wada ogsoonahay beerta nabadda waa beertii hooyada beeraha hooyada waaye maxaa yeelay waa markii ugu horeysay beerta ugu horeysay ee laga yagleelo ama laga aasaaso beertan oo magaalada Muqdisho qaasatan caasimadda Muqdisho beerta ugu horeysay laga aasaasay ahayd markan waxaan leenahay waxa kale oo ka dambeeyna waxaan leenahay ayada baa hooyo u ah dadka aad bay u jecel yihiin way imaanayaan way damaashaadayaan waa dareemi kartaa indhahaada kuwa macalinka ah may wax culays kalama kulano meesha sideedo asal waxa loo sameeyay shacabka loo sameeyay asalba macnaha markeeda hore way fikradda waxay ahayd fikradda inay shacabka ku soo damaashaa tagaan ee guryaha ka soo baxaan ay u soo nafis doontaan marka wax caqabad ma lahan waxyaalaha yarka aanana waa loo barbar dhigo wixii yarka caqabad inaan xalina marka horena ugu talagalnay oo meeshaas arintaas waxa nooga yaalay maxay ahayd jadwal nooga yaalay waana waxaan leenahay beertana waa beerta shacabka reer Muqdisho waay qaasatan waa Soomaaliya qaasatan waxay u tahay reer Muqdisho dadka imaanaya qiyaasaan marka barbar ku sameeyay والله waxaan islenahay dadka imaanaya ciidaha
tiradooda ma xadadi karno maxaa yeelay ciidaha waa laba ciidood oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah marka maadaama dad muslim ah labada ciid aad baa loo imaadaa qiyaastii ma qiyaasi karo 10 kun 15 kun 20 kun oo qof waa imaata sanad walba marka la gaaro waqtigan oo kale maalmaha farxadda ciidda shacabka Soomaaliyeed waxay si weyn ugu dawaaldegaan farxadda si ay ula qaybsadaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana si weyn looga ciiday guud ahaan waddanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada muslimiinta Cabdiraxmaan Wabri Somali News Muqdisho